ku soo dhawaada mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aanu u bixinay xusuus reeb ama xasuus reeb had iyo jeer waxaad uga barateen barnaamijyada inaanu kaga hadallo dhacdooyinkii ka dhacay ardada Soomaalidu ay degto ee geeska Afrika 50kii 60kii 40kii sano ee ugu dambeeyay oo wax badan oo weyni ay dhaceen sheekooyin aan hore uga sheekaynay ayaa laga yaabaa inaad filanaysaan in kuwii oo kale aanu sii wadno laakiin barnaamijkani wuu ka duwan yahay waxaanu ka sheekayn doonaa waxaydan sheekadeeda si dhaba oo hore ugu maqal ninkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee hawada qora ama dabaysha marka dadka beriga la yaabay ku lahayd laakiin idinku meteorologist baa u taqaanaan oo imika saadaasha hawadu dee computer yar iyo qalab yar baaba inoo sahlay oo si fudud bay inoo helaa siday ku dhacday amuurtaasi ninkaasi waxa kaloo ka mid ah raggii ugu horeeyay ama ninka aan oran karo uu ugu horeeyayba wax Soomaaliyeed oo dayuurad haga waxaad maqasheen traffic baabuur kala haga oo kala celiya irka dayuuradahana waa la kala celiyaa waa la soo fariisiyaa wala la kiciyaa rag baa xukuma oo taa ka mid ahaa wuxuu noqday khabiir Soomaaliyeed oo aqoon sare oo caalamiya u leh marka loo eego irka duulista hawada garoomada dayuuradaha iyo wixii ku lug leh waxaan dayuuradaha la yiraahdo ama airportada ninkaan wareysanayno waa Axmed Cumar Maxamed oo loo yaqaano Axmed Cumar Cagadable waxa laga yaabaa dad badan oo ama duuliyayaala ama garoomada ka shaqeyn jiray ama meelahaas imika dib u xasuustaan Axmed waxa uu ku dhashay gobolka Gabiley isagoo inan yara ayaa Hargeysa la keenay kadibna wuxuu ka mid noqday ardaydii safka hore kaga jirtay ama aan oran karo waxay ahayd fasalkii saddexaad ee dhulkii la oran jiray maxmiyadda Ingiriiska ee Somaliland ee iskuul la qoro laba qolo ayuu ka horeysay wuxuu markuu dugsiga dhexe iyo hoose ka bartay iskuulkii la oran jiray Fisher oo imika loo yaqaano Sheekh Bashiir loo diray magaalada Cadan markaa hawl adag ayuu halkaa ka galay isaga hadhow ka sheekayn doono sheekooyinka ka mid noqon doonta wuxuu bartay culumta meteorology-ga loo yaqaano ama saadaasha hawada Ingiriiska ayaa markaa dhulka ka talinayay ciidanka cirka Ingiriiska ayaa training-ka ama tababarkaasi muddo ku siinayay magaalada Cadan kadibna Hargeysa ayaa lagu soo celiyay wuxuu noqday ninkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee dabaysha qora yaa badan ayaa ka qabsaday halka laga bilaabo ilaa intii uu shaqo ka fadhiisadka galay noloshiisa inta badan wuxuu ka shaqeynayay saadaasha hawada ma yahayn inuu haddana barto hagida dayuuradaha inuu haddana barto la hadalka dayuuradaha laftooda iyo soo fadhiisintooda oo taasina ay hagida ku lug leedahay garoomo inuu madax ka noqdo aasaasidii Somali Airline iyo markii dambe oo uu noqday Saudi Arabia isna uu hawl weyn ka qabtay marka loo eego garoomadeeda diyaaradaha iyo duulisteedaba shirar badan oo caalami ah oo ku saabsan sharciyada hawada lagu kala maro dabaylaha malaha waxaynu aragnaa dayuurad cirka iska marayse la iska maro sharci baa loo qaataa khabiir buu ku noqday amuuraha caynkaasa oo shirar caalami ka qayb galay jaamacado badan oo adduunka ayuu soo galay waxaan oran karaa waa ninka Soomaaliyeed ee nool ee ugu khabiirsan ama ugu aqoonta dheer xagga waayaranimada iyo dhinac walba marka lagu eego xaggaasi cirka iyo maristiisa iyo dayuuradaha ka hadalkeeda Axmed Cumar Cagadable ku soo dhawow barnaamijka xusuus reeb marka ugu horeysa inta yare kooban ee aan ka sheekay taariikhda hore iyo nidaamka xagga maxaad ka xasuusataa yaraantaadii iyo sidii iskuulka lagu qoray iyo noloshu say halkan ahaan jirtay iyo bal hadda in yaro hor Bismillahir Rahmanir Rahim waa bad dhamaysayba wixii aan oran balaha waad martay haddaba halkan markaad ku soo noqotay tiri markii bal iskuulka lagu qoray halkaasaan kaaga bilaabiyo waxa goobkaaga bilaabayana waxa ku jirta waqtigaas siday dadku ahaayeen ama anaga reeraha iyagu dhinac iyaga aan lahayn
malcaamad qur-aanta anigoo dhigta ayuu aabbahay soo kaxeeyey maalinoo wuxuu ii keenay niman odayaala oo reeraha iyaga ah markaasuu yihi inanka waxaan geynayaa halkaa meesha iskuulka ee faranjigu wax ka qoraya ee u duceeya markaasaa la yidhi cumarow inanka miyaad gaalaynaysaa markaasuu yihi war ma gaalaynaya haddii ilaahay u qoray wuu iska noqone inankaa loo duceeyo wadaad meesha ku jiray baa deedna yidhi adeer waxaa dhegtaada ka muuqda ma khadba markaasaan idhi haa oo qur-aankaad dhigataa markaasaan idhi imikaaban soo yeedhsaday maxaad soo yeedhsatay waxaan soo yeedhsaday xaamiim caynsiin qaaf intuu go-iisii dhulka ku dhuftay bui bal cumara oo eeg inanka aabbaha buu la hadlayaa marka aabbahay buu la hadlayaa bal cumara oo eeg inankaasi halkuu imika maraya waa wadaad yaa berri in yar baaba uga hadhsane qardhaastuu qoraba sabeen buu ka qaadan doonaa inankuge waa abaalmarintii la siin jiray markaa wadaadadii iyuu ku xisaabtamaya isagu ya qardhaastuu qoraba sabeen buu ka qaadan doonaa inanka ka daa buu hi halkaa aad geynayso halkaa kama daynaya buu hi waan u duceeya sidii baa maaragtay odayaashii ya lagugu duceeyey intaa mee lay duceen baa la yidhi war walaalkii aabbahay walaalkii adeerkay ahaa oo joogay daawud loolan jiray daawudoo ku xilo fur way kaga dhaaro inaanu inankaa qorin intaanu ku dhaaranin buu yihi war dumarkaaga ha iska furin gacani waa nin la u go-da eh berigaasaan mahmaadaana maqlay gacani waa nin la u go-da eh ha iska furin dumarkaaga ha dee markii dambe wadaadadii yidhaaheen waar ha la duceeyo ha loo duceeyo halkii baa faataxada la iigu maray horta halkaan ku tegay iskuulkaan ku galay halkaasay ahayd marka laba qolun baa kaa horreysay laba qolun baa naga horreeyey halkan sheekh bashiir imika la yidhaaho fisher looleeyey ayaa lanagu qoray oo saf dheer baanu sidaa usoo galay oo nin cadoo markii dambe markaanu baranay mr bel la odhanayo directorka educationka ba ninka haysta ahaa iyo maxamuud axmed cali oo isaguna ninka soomaalida oo dhanna madaxda u ahaa tacliinta aabaheed ayaa sidaasaa lanoo marayado markaasaa lanoo eegayay marka dee bidaartanna maan lahayn wejiguna iskuma daadin waxa yaroo kuusan oo cadoo qurux badan baan ahay oo cadoo markaasu sidaa intuu gaalkii ii hor joogsaday ayuu yidhi imse jir baa tahay markii horaa soo weydiiyey ya aabbahay soo kaxeeyey markaasaan idhi maxaa imse jir baa tahay masaan idhi 8 jir baane markaasuu yidhi very good hala qoro waa lay qoray waan ka tegey marka markii sigaal yaroo cad iyo shaar yaroo cad iyo koofiyad maaragtay mare laga tolay ayaa lana yidhi soo qaata oo markaasaanu qaadanay waxaase igaga daraay iskuulku meesha ay laba maqsin oo macalimiintu ay galaan mooyaane wax ka dhisani markaa meesha ma jiro xaafadaha iyagaanu ka soo qaadanay majilisyo aanu ku fadhiisanno markaasaa deedna dhulka ayaa inta sidaa laysugu simoo la xariiqo ayaa la odhan jiray kaasi waxa weeye waa alif waa a qurux ku raseeya sidaan u kala weynahay ama kuwa yarar baan ahaayo dhagax weyn iyo ku ballaaran iyo ku kale iyo waxbaan keenaa alifkaygu ma muuqdo kaa agtayda fadhiya ee iga weyni halkanuu ka soo qutaa qururux isleeg ayuu sidaa u dhigaa markaasaa quruxda la yidhaahaa waad wanaagsantay anigaana ka mid wanaagsanoo waan is ogahay laakiin waa buuggii aad wax ku qori lahayd baanu dhulka ku qoraynaa ya halkaasaanu ka bilownay markaasaa deedna intii aanu halkaa majliskaa soo qaadanayno xaafadda qaadan dhulka qoraynay ayaa lanoo dhisay iskuulkii maqsin laba maqsin aanu galnay elementarygii markaad dugsigii hoose ka baxdeen yaanu sheekh baa laidin geeyey anagu almilxu min albaxri carabigii badda ayuu mooyaane dee bad maanaan arag weligee maanaan arag markaanu sidaa berbero ugu soo baxnay annagoo sheekh ku soconno ay casar tahay ayaa mawjadii caddayd sidaa markaanu arkay baani waryaadeen war arigu fara badana waxaasoo ari maxay yaa waa mawjadii iska gallay magaaladii habeennimadii baa igaga sii daraydoo markii lai soo dhigay kalluunkii cashadii ayn sidaa eegay baan arkay caddaankii ayaan idhi kaale inaadeer anigu baruurta ma cuno markaasaa la idhi har baruur maaha cun sidaasaan gacanta ugu qabto markaan sidaa laba cood ay dhish tiray isku dhacday ayaan naxay ilaa anuu hilib adagu maan aqaynaye war waxani waa maxay waa kalluuna cun baa layidhi bisinkaanu qabtay wax kala garan maaye
caruur laakiin bisinka dee garanaysaan aha kalluunna taasaa iigu horreysay aad cunto aan cuno waay dabeedna sheekh baan u baxnay subaxii dambe waay marka waxaad tihiin kala fasalka afraad fasalkii saddexaad saddex baanu ku bixi jirnay ya taalita ayaa lagaga bixi jiray dabeedna intermediate-kana 4 baa lagaga bixi jiray saabica ayaa lana oran jiray qolada toddobaad baanu hayn ma anaga qodaydu waxba yaan suka yareyn qoladii ugu dambeysay baanu hayn khatintay saddexna kaga baxday iskuulka hoose afarna ka dhexe marka markii aad tagteen sheekh lambarkaagu imsuu ahaa lambaraa lana siiyey waay iyo muxyaran wax ku cuno dee ilana qalaanu leenahay bilayd iyo malqaacad iyo midi iyo tuwaal yar ayaa intaan walbana siiyey iyo 8 duub oo cadiira iyo 8 qori markaas sariirtaadina wataa adaa samaysanaya alaabtana waa teed wax ku cunaysay markaas la yidhi aqalkaagu waxba laygu yidhi aniga aqalkaagu waxa la yidhaahaa line libaax baa la yidhaha line house halkaa ka day intii yarayd baan qaatay ya markaasaan aqal baan doondoonaya aqal soomaali ilaan aqal baa la yidhi markaasaan markaan waxba waayey baan ku soo noqdo markaasaan anigu daar mooyaane aqal maan arag markaasaan idhi waa daartaa aqalkuya waa kaa koona marka caruurnimo iyo baduutinimo halkaasaan ka ahaa lambarkaagu imsuu ahaa marka iskuul 376 376 berberaa naga horreysayoo 344 bay ka bilaabeen iyagu marka lambarkaa la qoray waxa kow ka ahaa soo maaha cali qaadi dhakhtar cali qaadiyo maanta nool oo jooga ayaa lambar 1 ahaa anaguna 376 baan ahaa labadii qole naga horreeyey ayaa saddexdaa qole lambaradaasi la siiyey iyo inama elementaryga sheekhun laga qoray oo iyagana lambarada la siiyey oon ahaynoo 2 class ayay ahaayeenoo waxaa labadaa class ee elementaryga macallin u ahaa maxamed ibraahim cigaal allah u naxariistay ayaan ugu tagnay isagoo macallin elementaryga anaguna intermediate-ka aanu nahay marka halkaas 300 iyo 306 ka ha adigu soo maad sheekh baan waxaan ahaa 1609 horbaleega ninkaasana yar sheeganaya ya 1639 buu lambarkaagu ahaa ana 376 buu ahaa waxaan u malayn dee bidaarihiin oo la isku soo gaaray waxyaalo badan weli adigu waad iga yarayde markaa aad dhammaysay dugsigii dhexe dabcan dee tacliinta ugu sarraysaaba beriga heerkaas maxaa dhacay dabeedna waxaa dhacday laba shay labaduba way dhaceen mid waa mide ninkii bara saabka ka ahaan jiray Kenya oo markaa deedna Soomaalidu la oran jiray kama la yidhaah oo nin kulul ahaa ayaa loo soo bedelay British Somaliland markaasuu deedna sidaa u dhexgalay madaxdiisiiyo nin alla ninkii faranji ahaayee 5 sannadood joogayba wuxuu ihi waddanka waa in laga saaraa oo nin kala yimaada annaguna soo maray sheekh buu noo yimid uu nala hadlay af ingiriisi hagaagsan oo fluent kii dee la odhanayo annagoo aan istaagtaagan leexanayn ayaanu kula hadalnay markuu naga tegaya abaalkiisi muxuu noqday inuu yidhi halkan misay kaga baxayaan waxay kaga baxayaan 4 years markaasuu yidhi 5 years dhaha sanad ku dara marka totalkoo dhammi 8 ha kaga baxo 8 Kenya baa caynkaase waa Kenyadu soo maray soo baabiyeen 8 baa laga dhigay sanado halkii 7 sanadood laakiin anagu 7 baanu kaga baxno qoladii inaga dambeysay 8 lagu bilaabay elementary-gii saddexdaana 4 baa laga dhigay halkana ma aragtay waxa laga dhigay haddana dib baa loo celiyay malaya mar dambe marka wuu diiday ninkii madaxda ka ahaa wuxuu yidhi anigu waddankaisna waa laga saaray markaanu dhammaynay ayaa deedna waraaqaba lana siiyey waraaqdaasi waxaa ku qoran wixii shaqo ka bannaan waddanka Somaliland oo gebigeedaba dee karaani customka ah 4 macallin 3 maaragtay halkana markaas halka waxaa ku qoran hawada airline-ada 2 nin oo qora tan cidima eegaysa macaanagu ma eegayno maxamuud axmed cali aniga iyo 2 nin oo kale waxaanu nahay raggii maaragtay uu macallimada u qaadanayado khartuum ayaan markaas macallin buu markaa idinku talagalay inaan Suudaan tagno 2 sannadood oo macallin ka noqono
waan iska ogolaaday dee lama diidayaanu ilmo yar baan halkii lay geynayaba sax ninkay iskuulka u sarreeyey ninkii ku xigayoo markaa isagoo actingba sii ahaado meesha hayay oo la odhan jiray bedem mr bedem ya markaa bedemkaasi markii hore sida loo qori jiray waxay ahayd bad iyo ham laysku daray b a d iyo h a m markaasaa deedna ilan ingiriisigii baanu baranay markaasaan ohan jirnay waa doofaarkii xumaa hilib doofaarkii xumaa waay markaas marka laysku qada magaciisana bedem unbaa la odhanayay bad hamkaasina wuu qornaa waay ayaa deedna markii unbuu ii yimid oo soo ii yeedhay ahmed markaasaan yaser markaasuu yidhi adiga iyo yaasiin xaaji maxamed waa nin reer burca ahaa aabihii xaaji dhagax baa la odhanayo way garanayaan reer burcabe oo nuuradda ayuu qodi jiray dhagaxa nuurka ka samayn jiray labadiinaasi waxaan idiin qoray buu yidhi inaa idinku cadan tagtaan royal air forceka cadmeed ya ingiriiska ciidanka haa ayaa tegaysaan iskuol ah waxaa soo baranaysaan waxa weeyaan buu yidhi metrologiga maxaa la yidhaha waxaa airlineka ayaa wada recordska u haynaysaan oo siinaysaan hawada qoraysaan wada record buuna yidhi harmar recordkan wadarku maxaa la sameeyay maxay ahayd waay annagu labadayadaasi waa halkaasaa laga dhigay waay garan isagu yarkii markii uu meesha tegayba nin carabeed buu ahay carabtii buu dhex galay kelidii baa ku soo hadhay halkiiban 9 bilood ayuu koorskaasi qaatay halkaa maad yar baa ku jirta kuugu daray nimankii waxaanu niman cad iyo laba ninoo hindiya iyo laba ninoo carbeed iyo aniga ayaan koorska ku galnay nimankan caddi markaa kuwa caddina waxay ka yimaadeen ingiriiskii ka yimaadeenoo meesha lagu barayaa wax oo deedna waxaa lagu air forceka gelayaan nin 3 alif lahoo guran ayaa nimankan u madaxa markaasuu sidaa ii eegay markaasuu yidhi kan miyaha this is chico waa ilmaha yar caanihii hooyadiiba kamuu dhergina maxaa kan laga soo cadibay markaasaan intaan sidaa u eegay baan madaxa u eegay sidaa madaxa u eegay markaasaan idhi resultka imtixaankaad ogaan waxaad arki doontaa waxaad arki doontaa wax sameeyo imtixaankii baanu galnay markaan 9 bilood joognay ilaahay wuu ila qabtay subxaanahu watacaala sidaan sheegaya anigu 95 yaan helo lambar 1kii baan noqday maca ingiriiskii wuxuu wada dhanba anigayga ugu yaraa baa noqday inama soomaaliyeed oo taarka dira ayaa agtayda jooga oo intaasi i dhiirinaya oo shaaha ii keeno oo sandwichka i siiyo oo sandwichkuna de halkaas igu cadan ka shaqeeya ayaa raggaasaa wada jooga 3 nin oo taarka qora oo dira ayaa jooga oo markaasa waryahay hoy magacaagii ka sokow waddankii ayaad maaragtay ka tahay wakiil ka tahay isilaali war malaha garanba maysid waxaan laguu sheegay iyagii baaba shaki galay deen yaraantaydii ilaan kan gaallo jika uba dee yidhi sax markaad soo noqotay markaad soo ee hargeysa laguu soo celiyey maxaad noqotay waxaa la yidhi meteorological observer ayaa la dhahay waa hawada dabayl qore marka waxaa reerkiinii u sheegtay markaas anigoo shaariyo surwaal gashayaanka ayaan xeraharu dhaagteedii dee sarkaal iska dhigaya saasa ayaa la yidhi waryaha ina cumarow maxaad qabataa markaasaan idhi dabayshaan qoraa yaa way yaabeen show halkan anigu aan leeyahay dabayshaan qoraa ilaan dadku waxay u yaqaaneen ninkii aan shaqo haynin ee bilaa shaqo ah ayaa la yidhahaa hebel muxuu qabtaa hebel dabayshuu qoraa waxa weeyaan shaqo ma hayo anigana shaqaaba ii too koors baaban u soo bartay oo cilmi baaba soo bartay oo ya dabeel qorkii ya adiga qudhaada inkastoo inan yar ahayd haddana dee ninkaa magaranaysaa dibadda loo diray ee ilaa xad joogaad ahayd nacam markii ugu horreysay casharkii ugu horreeyey laguu soo galay ee lagaaga sheekeeyey dabaysha la qorayo casharkii kuugu yaabka badnaa kaa soo maray muxuu ahaa mar alle markii ninkii uu soo galay ou sheegay ayuu yihi maaragtay waxa weeyaan metrology baa la yidhaahaa marka waa wadarka weeyaan cilmiga wadarka weeyaan hawada cilmigeeda weeyaan markaasuu sidaa cirka u eegay markaasuu yihi for example daruuraha aad arkaysaan 7 nooc weeyaan daruuruhu
warma daruurtan roobku ka da-ayaa 720 nooc annaga waa noo daruuruune waay markaasaan nidhi haw wuxuu yidhi 3 baa marka hore loo qaybiyaayo waxaa la yidhaha buu yidhi low cloud iyo medium cloud iyo high cloud waxa weeyaan dabaysha hoose daruurta hoose daruurta dhexe iyo ta u sarraysa ha waay maxay ay ku kala hooseeyaan ay ku socdaan tan hoosow waxa weeye ilaa 8 kun oo fuud wixii gaadho waa ta hoose ta dhexe ilaa 15 kun oo fuud wixii 15 kun oo fuud ka sarreeyana ya annagu qiyaastana ku qiyaasiyo markaan leeyahay dee fuudharkii dhulkaanu garanaynaaye isaga wuxuu ka hadlayaa fiidka dayuuradda duulaysa ya ayaalka markaas annaguna waxaanu leenahay gaar ahaan anigu isle 8 fuudhe halka dhimaka inta saa loo tire laysdaba dhigo ayaa daruurta lagu gaaraya ninkan uu iska hadlaya ninkan uu iska hadlaya adiga siduu kuu yidhaaho un hadhow ugu sheeg waa cilmi ismalihi markii aad dhammaysay cilmiga iyo maalintii ugu horreysay waa sidaa aad sheegaysay dee aragtiyadaa kale kaanka iyo idiin dhexaysay markii dambe adigu seed wax uga dhaadhicisay dadkii Soomaali gaar ahaan kuwii wax garanayay kullay suuqa reemiga de waa taa lagu leeyahay waa ninka waanu sheego markaas waanu markaa aqoontii aad soo baratay markaad la timi sideed u aragtay markaa inay wax u anfacayso oo ay wax u tarayso waxa iga soo horeeyay nin Soomaaliyeed oo cadan ka shaqayn jiray laga soo bedelay iyo nin gaal ayaa sii joogay markaa wax civil aviation leeyahay maaha waxa weeyaan waa airport ninka waxa la oran jiray airport manager airport ama airport manager marka airportka qurxay jirayna ka hargeyso kaasun bay hayeen oo kaliya kuwa kale waa strips yaryar oo berbere ayaa un baa hayta oo aan sibid yalahayn waxba lahayn amuudiska oo dayuurada may degi jiray waayo dayuuradda markaad iman jirtay ee eegay Alien Airways dayuurad la yiraahdo haydo wiigii oo laba ijiin leeyahay wiigii mar bay iman jirtay adan ka timaado adan bay ka iman jirtay dayuurada kale may jirin airport kale may jirin dayuurada kale waxa weeyaan militariga air force ayaa iyagu dayuurada lahaado iman jireeyo marka iyagu waxay u tagi jireen Nairobi oo ay raashin iyo hilib iyo khudrad iyo waxa uga soo qaadayaan ciidamada cadan degan ayay halka uga soo qaadi jireen markaas ay soo mari jireen iyagu way nasii mari jireen way nasoo mari jireen ingiriiskuna kuwaasaaba markii hore ilaalin jirayo waxanaaninaye dee markaad civilkii markii ay noqotay ayaa DC3ga goorma ugu horeysay Axmed Cumar Caga Dablow adigoo shaqo halan ka bilaabo oo qabta waxay ugu horeysay iskuulka markan ka soo baxay markiiba way ii sii qoreydo April 15keedii ayaa BWD-ga ayaa xafiis yar la yiri halka fadhiiso aye oo xafiiska hawlaha guud ee halkan ku yaala weeyaan hawlaha guud ayaa 15 maalmood markaan joogayna waxa la ii diyaariyay dayuuradii iyo tigirkii iyo cadan baaba la ii qaaday 15 ka maalmood ayaan wadanka markaa joogay oo de shaqaale ahaa markaa mushahaaradii ba 15 kaasi la nasiinayo waxa maadle halaysiiyay 3 shilin waa mushahaaro barkeed annaga mushaharadeedu waxay ahayd bishii 65 rubaad astaghfirullah shilin lama gaadhin markaa rubaad bay ahayd marka 65 rubaad ayaa annaga lanagu qoray shaqada idinka ugu sarreeyay annaga macallimiintu ma naga sarreeyay kuwa macallimiinta 100 rubaad baa lagu qorayo iyagu macallimiin bay ahaayeen rubaaddaas markaa maxay tari jirtay rubaaddu dee sabeen bay goynaysay annaga rubaaddu xagee shilin nus bay ka ahayd shilin nuskii markaa April baa lacagta la bedelay April 1951 ayaa la bedelay markaa ninka gaalay yimid bada saabka ahaa kame ayaa waxaan wada shilinka keenay markaa shaqadii kuugu horeysay waxaad qabatay 1951 sanadkaasi magac caana buu lahaa waa run muxuu ahaa waxa la yidhi jiray waa sanadkii habtii maxay ku dhacday habtaas maxay habtaasi waxay ahayd xanuun la yidhi waa kaneeco oo roob fara badan baa horta waddanka ka dhacay aad iyo aad markaasaa waxa dhex raacay uun
kaneecadaasaa ka dhalatay baa layidhi bari buu ka soo bilaabmay xeergaba dusheeda waxay silaa galbeed buu soo socday burco dusheeda markuu marayo ayaa oo loo doonay ayaa la yidhi sawaaxil ha looga doono dawooyinoo waa la soo qaaday cadan baan markaa anigu u baxay abril baan baxay waana mey markuu bilaabmay lama ogolayn wax dadahoo ka yimaada dayuuradda intay cadan ka yimaada ee doonaya british somaliland inay yimaadaan waa la iska soo daynayay laakiin wax british somaliland intay ka yimaadaan cadan soo gala mamnuuc bay ahayd cadarka khatarkiisu wuxuu ahaa cudurka reeraha baadiyaha iyo xoolihii caawa la soo xereeyey ayaa deedna oo la maalay ayaa deedna subaxii baa la odhanayaa deedna waagu markuu beriyo xoolaha la dareeriyo wax alla wax ooda ka qaada xoolihiina way wada caafimaad qabaan dadkii oo dhammina way wada jiifaan waa meyd marka intee leeg buu socday cudurkaasi aad muu badnayn dhowr bilood ayuu socday dhowr bilood buu socday marka habtii weeyaan sanadka waa 51 1951 marka adigu markii aad iskuulkii soo dhamaysay cadan maxaad noqotay markaad halka soo noqotay meteorological observer baan qoranahay waxaad qoran tahay markaa nin saadaasha hawada ilaaliyo oo qora marka taarbiindhayaashan maragtay afka loo geliyo dadka xumadooda la eegayo kuwaasoo kale oo dhaadheer ayaanu xumadda hawada ku eegaynaa anagu ya kuleylkeeda kaa kuleylkiisaanu akhriyayna kaasina waxaanu akhriyayna qabowgiisa ya kaasina waxa la eegi markaasaa deedna waxaanu haysanaa markaa buugaag aanu ka akhrino oonu isugu celino ya halkana waxaa noo yaala buugaag code lambara lagu qoro hargeysa lambarkeedu east africa lambarkeedu wuxuu ahaa 63 waxa ajaa'ib aan ku qoraa 63kii berigaasi inagu aynu lahayn ayuunbaa beri dhaweyd in la yidhi telefoonada 63 baa lagu kordhiyey la hor dhigay markaasaan hargeysa matiibaa lasoo xusuustay marka waa hawada marka saadaasha hawada la xisaabinayo lambarkay hargeysa iyo berbere iyo aanu lahayn 63 buu ahaa Soomaalidu maxaa la raacinay 170 ayuu nambarka hargeysa 150 berbere boorama ahayd 160 berbere ahayd marka kuwaas waxa weeyaan tirakoobyada marka la qaadayo ee la sheegayo meel heblaayo hawadeedu 170 oo hargeysa lambarkeedu waa caynka hawadeedu waa sidaas sideed u diri jirteen hawada marka maxaa sameyn jirteen waxaan sameyn jirnay marka ma hadli jirteen mise wax ma anagu markaanu qorno aanu maaragtay code baanu ku qori jirnay number Somali Scoutka ayaanu geyn jirnay xafiiskeeda oo halkan imaka bada saabka xafiiskiisu ahaa ayay degi jirnay aqalada yaryare sidaa kuwaas ayaa secretariatka berigii dambeena baranay la odhan jiray oo dawladdu ay geli jirtay halkaasay joogeen iyagaan u keeni jirno iyagaa deedna u diri jiray cadan oo cadan baa heerku waa dhar noo ahayd marka waxay ku dirayaan dhiidhaa baan odhan jirnay anagu morse koodkii baa la odhan jiray dhiidhaa maxaa lagu bixiyey dhidh weeyaan sanqadhaasay u bixinayo oo eed waxay odhan jirtay dhidh dhidhuna waa dhibic dhaaduna waa daash marka la dirayo ayaa dhidhana waa la taabanayaa un daashkana waa la yara haynaya waasuu dhaa odhanaya dhidhaa waa e dhaadhidhidh waa b dhaadhidhaadhidh waa c sidaas waa marka waxaad leedahay hawadii maanta hargeysa halkaasay taagan tahay ayaanu qoraa wax ku fali jiray dayuuradaha ingiriiska ee Royal Air Force-ka ee cadan jooga kuwaasina waxay u diri jireen qaahiro Ismaaciiliya oo Cairo base-ka Royal Air Force Middle East-ka ee ingiriisku halkaas u marka cadanna waxay ahayd tan soke cadan baa annagana nu xukumi jirtay markii aad markaa noqotay waxa halkaan ka qabsaday intaa annaga halkaa la eegayo maaragtay haddaanan dirin wixii aanu qoraynay oonun waktigiisii hagaagsanaa dirin ya markiiba taar bay soo dirayaan oo markaasaa la odhanaya ninka qabanka hala ganaaxo maxaa la gaaray imse jeer baanu qori jirnay 6 subaxnimo 9 12
waay saddexda galabnimo 6da galabnimo 9 fiidkii markaa 3 saacadood baa saddexdii saacadood marbar baan qori jirnay wadarku siday tahay ya isbedbedel badan baa ku dhici jiray isku dhacaya adigoo sidan u taagan baad maqlaysaa marka onkudkii waa present wadarkii markaa onkudkii markaad maqasho dhibicna kuguma dhicin xabad kooda 17 si xusuusanaya 17 baa la oran jiray markaas waxa la oran jiray thunderhead but no precipitation at this station waxaanu maqlay onkod ha laakiin daruur wax dhibic ah dhibicii ma soo stationka kuma dhicin af ingiriisi baad ku shaqayn jirteen marka hadee say waxa ka waayeen markii aad halkaa gashay kadib waxaa soo dhawaatay xorriyaddii baan tani soo dhawaan horta dayuuradii baa bilaabmay aynan airwaysti marka weygii mar bay iman jirtay way kordhisay oo 2 jeer iyay tiri oo dee ingiriiskii dibadda ka imanayeen may soo qaadi jirtay kuwa halkan ka baxayana way raaci jireen iyo soomaalidii la bilaabayo waktigaasi waxa kale oo dee waktigaa bilaabmay cadan ayaa la yidhi meel waxa la helay shaqo ayaa batroolka laga helay markaasaa dadka oo dhamme ay xaggaasi u yaaci jireen oo loo dhoofi jiray ya marka halkii markabkii doonta laga raaci dayuuradii laga raacayay dayuuraddii ma ka shaqaynaynay ninka gaal oo keliya baa dayuuradda la hadla markaa isagoo keliya hargeysa fadhiya adiguna ku xigeen aniguna markaa anaan hawada u qorayaan siinayo hawadan anigu aan siinayo buu dayuuradda u sheegaa isagu ya u af ingiriiseeya aniguna af ingiriisiga dee waan aqaanayo waan ku wanaagsanahay annaga macallimiinta iyada wada faranji midhan bay ahaayeen laakiin soomaali ahaantaa lanoo diidayaa inaan dayuuradaha ayaanu taabano iyo waxaa maalmaha ka mid ah ayaa dayuuraddii nairobi ay ka timid xamar bay soo martay waxaa la socdaa nin nairobi ka yimid oo foreign office-ka ahoo ay dowladdan ingiriisku sugayeen ninkii gaale dayuuraddan soo dejinaya haddana gaalun baan leeyahay waa afkii aan u baranay ninkii faranji aan idhaahay ya ninkii faranji meesha markaa madaxda noo ahaa ayaa dooxii ka soo tallaabi kari waayey dooxii hargeysa isagoo xaggaas jooga ayuu roob dhinacaasuu joogay biriijna ma jirin biriijku ma jiro dooxii baa markaa soo adigu markaa dhinacan magaalada talowgeeda annaga ayaanu joognaa ee xagga airportka u dhow annaga airportka laftiisa baanu joognaa inuu shaqadayadii ay tahay waxaa ka soo yara horreeyey markaa halkaa ninka barasaabka ku xigayo karal la odhan jiray markay sugeen ay warna waayeen dee ilaa ninkiiba u sheegaye ayuu kaamkan hore oo ayaxlihii ay ku jireen ayuu soo maray oo halkiibu noogu yimid aniga iyo nin taarka dira oo ya qoladii maaragtay markii taarkii aanu kala soo wareegnay aanu meesha markaa bilownayba markaasuu yidhi dayuuraddii meeday markaasaan idhi dee way soo socotaa dayuuraddii ma hayno markaasuu yidhi waayo markaasaan idhi lama hadli karayno ya why we are not allowed baan idhi ya to speak to the airplane af ingiriiska iyaban toos markaasuu yidhi can you talk to it yes ma la hadli kartaa buu yidhi ma la hadli kartaa ha la hadal alla markaasaan badhankii riixay nin waan iqiino intaan berbur jooge Airways Victor Romeo Alpha this is Hargeysa do you read yani may maqashaan waxa weeye Hargeysa waa kaasi dayuuraddan lambarkeedu waa phonetic alphabet baan ugu yeedhayaa sax oo waxa weeyaan A B C D dii haddaan idhaa V R A inay qaban mayso marka alpha da alpha baa la odhanayay B da bravo C da charlie D da delta 26 kaba phonetic alphabet international weeyaan oo afkii caalamiga dowladda lagu hadlayay ayaan kula hadlay fariid waa maalintii ugu horeysay waa maalintii aan maya waan xadxadi jiray la hadalka dayuuradaha markuu iga maqan yahay kuwan ingiriiska aana dul maraya ee aan soo degaynin ee dee warramaynin ayaan la hadli jiray oo ku shaqayn jiray oo baalkan jahada ay jirta iyana aan ku baran jiray marka qualified baan ahoo oon isku kalsoonahay inaan hayo dayuuraddii baa la hadlay way dul taagan yahay dayuuraddii baa ninkii kabtankaa neefi ka soo booday ya hargeysa markaasuu yihi this is Aden Airways caynka iyo caynka marka wax kalaba ima odhan markaasuu yihi waxaad isiisaa jahada
aan xaggaaga usoo usoo gelayo usoo gelayo markaasaan idhi transmit ya hadalkaagii sheeg markaa transmitting buu qabanayaa laakiin ma hadlayo shuuq buu odhanaya markaa loud speakerkii kuu soo gelaya bahal yaroo steerin ahoo 360 digrii leh ayaan deedna anna sidaa idhi waan raacinaya halkuu hadalkiisu dam ku yidhaaho ayaan sidaa u qabanaya markaasay birtu ii kacaysaa dhinaca maaragtay labadii way isku xigaan 270 iyo 090 way isku xigaan midna waa east midna waa west markaasay irbadii ii taabatay 270 markaasaan idhi steer waa gudee kusoo firee 270 steer 270 degrees baan idhi ya kusoo roger thank you buuri waxoogaa markuu joogo ayaan idhi nasi what's your ETA langankan ay dul taaganay markaasuu yidhi daruurtaa igu ayaan kolla gelayaa kala ka soo baxayaa laakiin wuxuu yidhi after 15 minutes ayaan imanaya ninkii dulba wuxuu doonayay wuu helay ee dee bara saabka ku xigay ya anigiina wuu arkay inaan dee bahashi la shaqaynayo markaasaan hawadiisii wadarkii aan daruurtu intaasay ka sarreysaa dhulka hawaduna dhulkuna maaragtay xaggaasay ka imanaysaa halkaad ka soo degaysaana waa dhinaca ranweyga ya intii oo dhan oo dee markii hore anigu qoray ilaa aniga observe wixii anigu aan qoray baan u sheegay surface wind markaasaan idhi ya waa intaasoo nod sare xoogeeduna intaa yahay cloud basekuna waa intaa yaa doona af ingiriisaynaya daruurta waa intaasay dhulka ka sarreysaa hawaduna dhinacaasay ka imanaysaa kana wuu dhegaysanayaa anoon kii gaaleen dawladda wadeena markaasuu yihi roger thank you diibu kana yidhi saa ii soo eeg مثلا 15 minutes so I heard that so I'm going back what did you say your name was mabaan u sheeginba ee waa magacaad iduu diidaya tooska mas-uul maxaad tiri magacaaga wuu ahaa markaasaan idhi axmed cumar maxamed noodyar buu sitaa uu qorayo thank you wiiga digay waa meesha daarta dusheeda yar baa taagan maalintaasaa deedna la yidhi warqad la ii soo qoray maalintii ku xigtay oo la yidhi axmed cumar maxamed waxa weeye ku-xigeenka airport managerka dayuuraddana wuu la hadli karaa ya wuu la hadli karaa hanuunin kale maaha wax kale maaha waa la hadalkaa un hawadana waan siin karaa waana ka qaadi karaa halkaasaad shaqadii markaas si waan dalacaad weeyaan oo meteorologigii oo keliya maahe adiga dawladii la hadlayo communicator baa la yidhaha markaa laakiinse waxa weeyaan ninkan dawladda la hadlaya soo dejinaya air traffic controller baa la yidhaha laakiinse anigu dee maan tegin imtixaankii maan gelin markaan dhowr bilood joogay baa la yidhi course baa lagu dirayaa ingiriiska ah waxaad soo baranaysaa air traffic controller sidii dawladaha loo hagayey dibadna waa lagu diray maya intii ay wadwadeen waxan ayaa courskii dhammaaday markaasa deedna la yidhi courskii wuu dhammaaday ingiriisku nairobi baa lagu dirayaa marka waxa weeyaan kaadi tegaysaa shaqadaada si aad ku wanaajisato un weeyaan promotionna laguguma siinayo oo laguma dallicinayo marka ingiriiska rag badan baa loo diray administrationka ingiriiska oo soo bartay waxoo maaragtay deed la dalliciyey marka aniga waxaa yidhi laguma dallicinayo nairobi courskana u tegayso laguma dallicinaye shaqadaada unbaad ku wanaajisanaysaa ya si aad maaragtay ugu socoto waxaana weeyaan waa on the job training baa la yidhaha on the job training shaqadaadii baad ku baranaysaa ayaa adigoo qabanaya ayaa tababar lagugu baraya axmed cumar cadable waxaad ka soo baxday inaad hawada qorto waxaad ka bilowday imikood maraysaa inaad dayuuradii la hadlay oo markaa dabeedna aad siiso say kusoo degi lahayd iyo hawadii siday tahay intaas waxa weeyaan intii gobonimada ka horreysay 1960kii dee dabcan ninkaa shaqaalaha baad haydee ilaa habtii soo joogay garanaya waa la isku biiray ay sii gaboojinayna oo dee soomaalida baan ka maqli jiray moogtay oo kolley waa sanad aad u xuloo taariikhda galay weeyaan soomaaliya xorowday calan baa la qaatay waxaa isku biiray
qoladiinii ingiriiska ahayd iyo haye qolo reer koonfureed oo tagteen waar maxaad ka xasuusataa sheekada ha siday ku dhacday iyo sidii laysku helay iyo markii aad isku biirteen markaanu isku biiray hawadii iyo cirkiinii intaynaan soo gelin guud ahaan siyaasiya dhacay maxaad ka xasuusataa waxa weeye innagii iyo koonfuri markaanu isku biirsanay innaguna waxaynu lahayn tacliin hagaagsan oo sarraysa oo heera iyaguna aad bay u liiteen markaasaa deedna waxaa lanagu bilaabay in raggii halkan laga qaado laga bedelo oo xamar la geeyo oo 1960 lixdankii raggii uun lama bilaabin xisbiyadii markaad dhinac kale ka eegto isku biirka ha gocashaa ka dambeysay waa run la yidhaa nimankii siyaasiyiinta ahaa ha dabcan rabitaanka dadku waxay doonayeen in la isku biiro ha shacbigu ha koonfurta iyo qoladanba ha dee gaar ahaan qolada reer waqooyigu ha waxaa la yidhaahaa 1960kii ha laba waxbay heshiis ku ahayd haye 60kii waxay heshiis ku ahaayeen ha ingiriisna in la eriyo ha koonfurna lagu biiro lagu biiro ya ha mid baa ila kaftamo wuxuu yidhi maantana waxay heshiis ku yihiin buu yidhi haye somaliland inay jirto haye nabadgelyadana la la ilaaliyo ilaaliyo laakiin wax kaloo heshiis ku yihiin iyana ma jirto marka dabcan siyaasiyiintay ahayd inay wixii ay tabashada keenay nacam maadaama rabitaankii caynkaa yahay ha dee ay u kala qoraan dadka oo laba wadanoo isku biiray laga dhigo oo xeer loo kala qoro oo madaxnimada hagaag loo qaybsado oo markaa may dhicine waa tii markiiba magaranaysa gabaye iyo waxyo ee dareenka xuni dhacay nacam maxay ku timi taasi waxay ku timid sidii waxaad moodaa un wax inaga layna qaatay uuno aqoontii halkan unbaa horta ay koonfuri doontay markaasaa deedna la yidhaha lasoo bedelo nimalba lasoo bedelo anigaygii meeshan joogay oo markaa number 2 gaalka u ahaa ninka labaad oon filayo uun dee meeshan halkan inaad adigu madax ka noqoto ha raggii maaragtay la bedelay baan ahaaya la geeyey waay xamar la geeyey goorma lagu geeyey marka xamar waxaa lay geeyey goor aan maaragtay horta aan intaanan xamar aan laygeynin ayaa waxaa la yidhi hala biro ninkana loo soo kordhiya tacliinta waay ilaan waa anigan sawaaxiluun tegee soo noqday koorskii markaa kaas way iga dhicisooda sax ingiriiskaa lay diray waay sawaaxil la ii diray markaa hore ee maaragtay waxay ahayd intaanaan independence aynan qaadano 1959kii baa lay diray oo nairobi la ii diray sax oo la yidhaha soo barto halkaa cajaa'ib yar baan ka hayaayo nin faranji oo securityga ka shaqayn jiray ayaa ii iiman jiray markaasaanu deedna wada qaxweyn jirnay maalintii dambe buurin war waxaan ku weydiiyey adigu halkee tahay maree hargeysaa tahay mise ree burcaa tahay waay hor cajaa'ib markaasaan idhi hargeysaan ahay waay markaasaan how do you know hay wuxuu ihi kamil koorkii ayaan ahaa sarkaal buu ii markaa burcan deganaa aan hayee buu jooga raggii kamil koorkii ayaan ahaa buu waa ciidamadii kamal koobs loo jiray awrta lahayn jiray markaa waad kanoo imika adigu raggii dibadda tacliinta usoo maray baa tahay markaad imika noqoto madax baad noqonaysaa buu you will become an officer ya oo aviationka adaa qabsanaya haddaba sidaa iyadoon waxba laga sheegin aniga markaa waxaan kaa doonayaa buu ihi dee shaqa inaad qorto markaa securitygaad qorto shaqa beelayay ya waay waa tahay baan securitygaan ku qorayaa baan markaa waan yaabsanaa ninka gaale halkan jooga adigu imika shaqo kaasii doonaya aan weli aan meelan dawlad qaadan markaa dawlad qaadataan bui next year ya waxaad noqonaysaa bui maratay sarkaalka meesha xukuma markaasaan doonayaa bui inaad aniga shaqaysiiso shaqadiiba markaas nin la yidhi haddaba maxaanu yaallaa halkii baan koonfur baan intaanan england la ii dirin oon laakiinse ku filanahay la hadalka dayuuradda oo sidaasoo dee aan laakiin u haysto nairobi dee aan tagan ka soo noqday ayaa daadkii ayaa soo rogmaday oo koonfur baa daad ku soo ku furmay waa tii la odhan jiray daadkii walaweyn ha waxaan u malaynaya inay ahayd bilow habeenadii weeyaan habeenadii dayuuradihii markaa raashinka keenayey ama qaadayay dadka u geyn lahaa ayaa kismaayo ay degsa mooyaane markaa cid la hadashaa ma jirto ma yaqaana hadda waxaa jooga air forceka dhan baa jooga oo militarigii air forcekoodii 3 dayuurood bay leeyihin ingiriisku
ama ay xamar lahaayeen markii hore waay oo talyaanigu u wado waay kuwaasi markaa deedna meel daarta halka imaka airportka dhinaca uga dursayna badda agteeda ahayd ayaa daar yar ahaydo afisiyoni activation halkii afisiyonidii waxaa la yidhi waa in la keenaa dayuuradihii wax la hadlo oo dee wax wada raashinka dee qaadayay si ay u soo degaan ninkii gaale airport managerkanka ka ahaa ee madaxda anigay ahaa iyo aniga ayuu yidhi inakeen 2 taar baanu qaadnay HF waa high frequency lagula hadlo ilaa Nairobi dibadda kula hadlayso very high frequency oo ilaa 25 mayl lagula hadlo dayuuradaha labadaasaanu qaadnay mar alla markaanu meeshii tagnay aan waxoogaa joognay oo aan maalin joogay ayaa waxaa la yidhi Hargeysa wax ka dhaceen waay ninkii gaal markaas yuri waan dayuuradda u horeysaan raacayaano markaasaan rasiyaadu raacay cadan baan tegiyo dee xaaskaygii baa dee joogo oo ma joogo orod iska tag baan maxaa dhacay baa la Hargeysa waxaa la yidhi inqilaab baa ka dhacay baa la yidhi waa kii xasan ka yidhi waay Hargeysaan u yeedhay waa dem markaan baalkii rakibay intaan Hargeysa u yeedhin ayaa Nairobi u yeedhay aerialkayga baan halkan ku tuuray dhag baan ka dhigtay marka waa runta Nairobi this is Mogadishu markaasaan do you read markaasuu magaciibu hore u qaban waayo Nairobi waa Muqdisho ma maqlaysaa ayaan idhi magaciibu garan waayo markaasuu igu soo celiyay yiri station calling Nairobi say again your call sign station ka Nairobi u yeedhayo magacaagii sheeg markaasaan this is Mogadishu qosol intuu ku dhuftay dhag ayuu yidhi Mogadishu, this is Nairobi, reading you for the first time in history. markii ugu horeysay een maqala xamar shamsi si wanaagsan baan kuu maqlayaa markaa ninkii koowaad ee ugu horeeyay maqashiyada ayaa dibadda maqashiya